رمضان يدنو يا سعادة خافقين، يدنو لنا القرآن والإيمان نفحاته. بسم الله الرحمن الرحيم. walaalyaal soo dhawaada waad mahadsantihiin. waxaan jeclahay maanta inaan idin la wadaago barnaamij ramadaani ah ama barnaamij ramadaan ku saabsan oo aan ugu talagalay in qof kasta markii uu ogaado faa'iidooyinka ramadaanka uu leeyahay in uu xooga saari doono ramadaanka, ilaashan doono si caafimaadkiisana ugu fikiro, waajibka ilaahay saaran oo u guto. ramadaanka waxa uu leeyahay faa'iidooyin fara badan sida baaritaano kala duwan oo meelo kala duwan lagu sameeyay lagu ogaaday qofka haddii uu soomo faa'iidooyinka macnaha uu ka dhaxli karo. faa'iidooyinka aad ay u fara badan yihiin. waxaa ugu horeeyo maskaxda qofka bini'aadamka oo ah meeshii uu ka dhaqaaqayay jirka bini'aadamkana ka shaqaysiinaysay ayaa waxay tahay meesha lambar 1 noqon doonto meesha maaragtay waxa weeyaan ka faa'iideysato soonkii ama ramadaankii. waxayna ugu faa'iideysan doontaa markaa sidaan ognahay qofka bini'aadamka markii uu sooman yahay calooshiisa ma mashquulsano oo shaqo ma hayso. sidaa darteed marka maadaama aysan caloosha shaqo haynin wixii dhiiga loogu talagalay oo dhan caloosha waxay tagi doonaan maskaxda. sidaa darteed marka maskaxda aad bay u shaqayn doontaa, fikir aad u fiican oo keen doontaa, maskax wanaagsan qofku uu yeelan doonaa, faham badan uu yeelan doonaa, waxbarashadiisii iyo maaragtay wax akhrintiisii intaba way kordhi doonaan. number 1 qodobka koowaad ugu muhiimsan waxaa waayo in maskaxda bini'aadamka ay ka faa'iideysanayso qofka inta uu sooman yahay. bisha ramadaanna waajib ay tahay, marka waajibkaas adigoo gudanayo kaga faa'iideyso faa'iidada maskaxda inuu ku kordhiyo ramadaanka. ramadaanka waa maskax kordhiye, maskaxda bini'aadamkana wuu ku kordhinayaa insha Allah hadduu la yiraahdo. qodobka labaad ama faa'iidada labaad oo ramadaanka uu leeyahay waxay tahay in uu nadiifiyo wasakhda iyo sunta ku jirta jirka. sidaan ognahay caloosha ayaa waxay tahay meesha ay ka soo galaan raashin kasto, infection kastana uu ka soo galo jirka. inta badan haddii aysan jirin wax dhaawac oo banaanka kaga imaaday, meesha ugu badan infectionada ka soo galaan waa afka, calooshay tagaan. raashinka maadaama aanan lagu maartay xilliga la soomaya maadaama raashinka laga af haysan doono waxaa imaanayso in wasakh badan oo raashinka la socon lahayd oo jirkana wax yeelayn lahayd in ay banaanka ka joogto. sidaa darteed marka jirkaagii awood wuxuu helayaa inuu dib isku dayactiro, dibna u hagaajiyo boogihii iyo meelihii maaragtay waxa weeyaan 11kii bilood oo hore ee aadan soomin meelihii dhaawacyada soo gaaray. sidoo kale faa'iidada saddexaad ayaa waxay tahay in qofka difaaca jirkiisa kor u qaadi doono markii uu sooman yahay. maxaa yeelay qofka bini'aadamka ah immune systemka wuxuu jaanis u helayaa maadaama infectionada ay yaraanayaan xilliga qofka uu sooman yahay. immune systemkana dayactiro isku sameynaya markastoo adiga waxa weeyaan jaanis lagu siiyo waa is diyaarinaysaa, waa is agaasimaysaa. qofka marka waxa weeyaan immune systemka wuxuu sameyn doonaa inuu aad isku diyaariyo cudur kasto oo imaado inuu iyuu xalliyo. haddii qofka marka soon si dhaba uu soomo oo soon daacad oo la yimaado raashinkiina uu iska dhaafo waxaa u soo ziyaadayo difaaca jirkiisa ayaa ziyaadayo oo qofka difaac badan ayuu ka dhaxlayaa. waa faa'iidada saddexaad. faa'iidada afraad waxaa waayo qofka bini'aadamka ah jirkiisa wuxuu qaadan karaa markii uu soomo oo afuro wuxuu qaadan karaa nafaqo ku filan oo jirka anfacayso oo maaragtay maskaxda wax u tarayso oo maaragtay dareen wadayaashii sida indhahii iyo dhagihii iyo kulligoodba maxaa la sheeg quudintoodii ku filan ayuu helayaa. marka quudkaas iyo faa'iidadaas uu qaadan doono qofka markii maaragtay waxa weeyaan uu sooman yahayna uu ka faa'iidi doono. waa faa'iido kale oo iyadana faa'iidada afraad ah. faa'iidada shanaad uu heli doono cudurro waaweyn oo uu ka mid yahay dhiig karka iyo cudur loo yaqaan IBD ama inflammatory bowel disease oo caloosha ku dhaco ayaa sidoo kale xal ay u tahay soonka. qofka markii uu sooman yahay dadka qabo inflammationka caloosha ku dhaco ama caabuqa caloosha ku dhaco saxaradooda mar walba ay jilcan tahay oo shubanka u badan markii ay soomaan faa'iidada koowaad helaan waxa waa cudurkii inuu yaraado, inflammationka inuu baaba'o,
xataa dadka allergiga qabo faa'iido ayay u tahay ramadaanka oo allergiga wuu baaba'ayaa dhiigkarkii wuu yaraanayaa maxaa la sheeg sidoo kale cuduradii caloosha ku dhacay haddaan sheegaynay maxaa la sheeg ha ahaado muxuu ahaay cudurkii haddaan sheegnay oo inflammatory bowel disease labadiisa nooc intoodaba waxaa weeyaan wuxuu u yahay daawo iyo ka hortag oo faa'iido u leeyahay soonka kolestaroolka ayuu hoos u dhigaa oo wuxuu keenaa in kolestaroolkii jirka ama dhiigga ku jiray inuu hoos u dhaco dadka qaba marka cudurrada kolestarolemia loo yaqaano ama dhiigga oo dufinta ku badato waxaa u fiican inay soomaan si soonka oo u yareeyo dufintii ku jirtay dhiigga uguna dhigto maaragtay waxaa weeyaan heer oo qofka waxaa weeyaan marxalad fiican galo marka caafimaadka ramadaanka uu leeyahay ama soonka uu leeyahay aad bay u fara badan yihiin ilaahay waxaa weeyaan wuxuu ku islaaxinayaa jirkaagii miisaankaagii maskaxdaadii caqligaagii waxaa kaaga sii darno idinkugu bishaaraynayaa dadka sooman waxaan ugu bishaaraynayaa inay noqonayaan dadka ugu duqnimada yar oo macnaha aad uma duqoobi doonaan qofka bini'aadamka ah ee soonka badiya duqnimadiisa lagama dareemayo xataa haddii da'diisa ay weynaato wejigii tutubnaay iyo baabi iyo badnaay iyo wixii lagu arki jiray qofka duqa ah waa ka yaraanayaanoo sida dadka kale caadiga ma noqonayo oona maaragtay ka roonaanaya sidoo kale waxaa lagu daaweeyaa soonka dadka maskaxda stress ka qabo dadka maskaxda ka jiran soonka oo u fiican yahay waxaa tusaale kugu filan waagii hore dadka maysan aqoonin daawooyin badan tiro badan waxay sameyn jireen macnaha qofka markii uu xanuunsado waa la jeenin jiray wax badanna ma uusan cuni jirin sidaa darteed marka waxaa imaan jirtay markii raashinka oo iska dhaafo oo cabaar oo jiifo waxaa imaan jirtay caafimaad ilaahay uu keenay taasoo ka imaanayso maadaama calooshii ay nasatay jirkiina uu nastay oo wixii lagu shubaayay tirada badnaayna ay ka nasteen caafimaad ayuu tartiib u dareemaa waxaa arki jirtay haddii dadkii hore aad ka mid tahay ama dad qof waayeelo wax baadiyaha ka yaqaan aad tahay waxaad horey u arki jirtay neef oo xoolaha neef ka mid ah haddii uu jirrado waxaa loogu tegi jiray meel waxaraha agtooda ah oo waxba lama siinayo xerada iska dhex fadhinayaa sidoo xerada u dhex joogo maanta dhan uu u baahan yahay ayaa biyo loo geynaya biyo xataa ma taabanayo ilaahay ayaa ku ilhaamiyey sidoo u joogo subaxda kale asoo fiican oo iska baxaya arkaysaa taas macnaheedu waxaa waaye jirkii awooddiisii aa lasoo saarayo jaanis waxaa la siiyey jirka oo isku nadiifiyo wasaqdan isaga tirtiro wixii jeermis ku jirana ku baabi'iyo marka soonka waa awood soonka waa cibaado soonka waa faa'iidooyin badan yahay waxaa kaloo idinkugu bishaaraynayaa dadka ka baqa kansarada burooyinka ku dhaco maarta waxaa weeye naasaha ku dhaco ama burooyin ku dhaco minki iyo waxaas ku dhaco kulligood waxaa ka hortag u ah oo ka dabatag u ah oo faa'iido weyn u leh oo yareeyo waa soonka sidaa darteed marka hooyooyinka waxaan jeclaan lahaa iyo gabdhahaba inay soonka badiyaan si ay ugu faa'iidaystaan faa'iidada ka hortagga burooyinka iyo kansarada marka waa faa'iido aad u qiimo badan oo maaragtay waxaa haddii uu burooyinka iyo kansarada ka hortago qiimo aad u weyn weeyaan waqtiga oo yar aawadeed halkan waxaan kusoo gunaanadaynaa barnaamijkeenii soo socday muddada daqiiqadaha ah oo aan ugu talagalnay inaan ku boorino dadka una sheegno faa'iidooyinka ramadaanka ama soonka ramadaanka uu leeyahay waad ku mahadsantihiin mar iyo mar kale barnaamijkan iyo barnaamijyo badan oo la mid ah waxaan idinkugu soo gudbin doonaa facebooka iyo midka aan ku leenahay youtubeka soo ilaa yaraado waad mahadsantihiin والله رب دأبه الإحسان